wiilkan Soomaaliga ah oo 13 jir ilaa 15 jir da'diisa lagu qiyaasay ayaa waxa dilay nin cunsuri ah oo aad u naagay dadka Islaamkaas gaar ahaan Soomaalida ku nool magaalada Kansas. xilligii wiilkan ninkan gaariga uu jiirsiinayay ayaa waxa uu la socday aabihiis waxayna goysiinayeen wadada iyagoo dhanka kale wadada uu masaajidka u socdeen ku yeelay. booliska oo halkaas soo gaaray ayaa waxa ay xaqiijiyeen in arrinkan uusan ahayn shil balse uu ahaa mid si kas ah oo bareer ah loogu dhiftay wiilkan gaariga maadaama ninkii gaarigan shilka geystay watay uu cararay. booliskuna ay gacanta ku soo dhigeen. booliska waxa ay sheegeen ninkan inuu yahay 30 jir gacantana ay ku hayaan oo geerida wiilkan sababayna lagu xukumi doono. tan hadda warbaahintii halkaas soo gaartay oo Soomaali ah ayaa waxa ay sheegeen in ninkan hadda ku hor uu soo ku qabtay qaar ka mid ah Soomaalidaasi una hanjabay inuu dilayo sababtoo diinta ay haystaan. sidoo kale booliska ayaa waxa ay sheegeen in arrinkaani uu yahay mid diin nacayb ah isla markaana ninkan uu geystay si ula kas ah oo doonayay inuu dilo wiilkan iyo weliba aabihiis. That's just ridiculous. Like, who does that? You know what I mean? I'm just very hurt. Our family is very hurt, and please pray for our nephews. Family says the victim of the crash, the 15-year-old, is the son of the leader of the mosque here. I did just speak with the victim's family. They tell me that he was brain dead, but they decided to take him off of life support. Megan Burley, Fox 4 News, working for you live in Kansas City, Missouri. We've learned new details since 6 about an SUV driver who hit a teen and tried to run off.